السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal soo dhawaada. Magacaygu waa Dr. Maxamed Liibaan Maxamed. Halkan waa kanaalkayga YouTube. Maanta insha Allah waxaan ka hadli doonaa topic aad iyo aad u muhiimsan. Waana marxaladaha qofka bani'aadamku ku yimaado oo loo yaqaano kaadi baxsadka. So this marka calaamadan qofka uu isku arko kaadi baxsadka dabcan waxyaabo badan uu ku fikiraa, dhibaatooyin culus badan oo qabsanaya nafsiyan. Wuxuu isku dayaa marka in qofku uu dabcan bulshada qaybeeda kale inuu ka socnaado, social isolated inuu sameeyo. Waxaan ka hadlaynaa marka qaybaha uu kala yahay kaadi baxsadka, waxyaabaha keeno, siyaabaha loo daaweeyo, sida caadiga ah dabcan daawooyinka iyo qaababka kala yihiin insha Allah waa dul istaagnaa. Waxaan idinka codsanayaa intaas ka hor intaanan guda galin inaan dabcan channelkayga aad subscribe ii saartaan. dabcan wixii comments ah iyo aaraha iyo ra'yiba aad ka soo dhiibataan si aan dabcan anigana aan idinkugu soo jawaabo waxyaabaha aad baahida gaar u qabtaan oo ku saabsan mowduucan. Insha Allah waxaan rajaynaynaa marka inaan guda galno topiga. Kaadi baxsadku waa dabcan waa marxalad ka tirsan calaamadaha qofka bani'aadamka ku dhaco oo kaadi mareennada la xiriiro ama kaadi heesta, in xanuun ama dabcan uu ka jiro cilad. Ayadu maxay tahay marka kaadi baxsadka? Afka qalaad waxaa lagu dhahaa medical urine incontinence, yacni kaadida inay qofka si aan controlled ahayn ama aasan asaga u dareensaneen inay ugu imaado isagoo hool ku jiro, isagoo caadi ah, si caadi ah isagoo dareensaneen inay ka imaado danna uu musqushi intuu aadi lahaa xataa ay ka fakato. Taas waxaan dhihi karnaa marka waxaa marka ciladoobaye normal contractility oo bladderka uu sameynayay. Contraction uu sameeyaa markii kaadida ay ka soo baxayso, waa dul istaagi doonaa. Functionkaas ayaa ciladoobayo. Ayada meeqa qaybood u kala baxdaa marka? Saddex qaybood oo ugu muhiimsan: inuu yahay stress incontinence qofka, inuu yahay wax loo yaqaano urge incontinence degdeg wax ku jiro, iyo inuu yahay overflow incontinence qofka kaadi dhibco ay ka imaado maanta dhan musqusha uu aado uu soo laabto haddana ay qabato dabcan uu ku laabto musqusha muddo badan uu fadhiyo. Insha Allah waa dul istaagaynaa qaybahaas dhan, waa dul istaagaynaa saddexdaas qaybood aan soo sheegnay. Waxaan rabnaa marka sida caadiga bani'aadamka Ilaahay wuxuu ugu dabcan ku manaystay organadeena jirka qaybo ka mid ah labada both kidney, right and left. labadaas kidney marka excretion waste product ay sameynayaan waxay soo raacsiiyaan two ureter. labada ureter tubooyinkan u jeedin waaye. labada ureter markay kaadida ay ka soo gudubto si caadi ah marka waxay soo fadhiisanaysaa bladderka. This area waa image-ka bladderka aan ka bixinay. bladderka markii full of uu noqdo uu buuxsamo dabcan waxa isbedelay marka expanded uu noqday, normal size-kiisana wuu isbedelay. Wuxuu sameynaa marka intaas ka bacdi marka muscles-kii waxay sameynayaan inay u diyaar garoobaan kaadida inay jirka ka baxdo. Physiological function ayaa dhacaya. waxa ugu horeeya waxa loo yaqaano nerve impulses ayaa waxa loo diraa sacral region-ka oo spinal cord-ka. That's marka weyga waxa laga soo marka sameynaa parasympathetic way oo increased ku sameynaya marka in contractility badan ay ka dhacdo detrusal muscles-ka oo ku hareeraysan bladderka. Markii contraction ay sameeyaan ayaga normal contraction-ka markuu dhaco kaadida marka waxay isku dayeen inay meeshii ka baxdo. Waxaa area-dan ku yaala marka laba junction oo midka kor loo yaqaano internal sphincter muscle oo kaadida ay ka soo gudubto. Normal relaxation ku dhaca marka relaxed oo noqona involuntary kaadida way ka baxeen marka. Throat ayada u sii gudbayso marka external kii banaanka xiga marka volunteer ahaan oo asagana ay ugu gudbeen. Taas waa marka physiological caadiga ahay sida qofka kaadida ugu timaado waaye. Stress incontinence-ga marka laga hadlaa ayada muxuu yahay? Stress-ku dabcan waxa waaye marxaladaas badanaa waxaa la kulmo bukaamada age-ka way la kulmaan, hooyooyinka da'da way la kulmaan, dadka smokerska sigaarka cabka badan way la kulmaan, hooyooyinka dhalmada joojiya dabcan oo dhalmo joojinta ku jiro
ayagana iyo kuwa dhalayba way la kulmaan. wax kale ma ahan dabcan pressure badan ayaa wuxuu saarmaa bladder muscleska then relaxed ayay dareemayaan kaadi inay ka baxsato. That's marka waxaa dhacaya marka weakening ayaa dhacaya marka oo receptoradii ku hareeraysanaa bladderka impulse ay u diraan spinal cord injury. markay u diraan hypercontractile badan dhacayso oo lagu sameynayo markii in contractionkaas ee bladderka move uu ka saaro kaadida. markay pregnancy timaado sidaan ognahay hooyada markuu ilaahay uur ay ku marxaladda uurka ay ku jirto waxaa dabcan sameysmaa physiological mechanism kala duwan oo ugu horeeya marka pelvic areadaas oo cavity cunug uu ku fadhiyo compression badan ay sameynaysaa marka lower part oo urogenitary oo ugu horeeya bladderka iyo ureteryasha. markay compressionkaas ay sameyso qofkii marka kaadidiisa ma ceshan karo oo waxay noqonaysaa marka stress inay ku abuurto ay ka fakato hooyooyinka u badan. smoking marka ayada ka hadalna dabcan waxaan dhihi karnaa smoking waa dadka sigaarka cabista badan. waxaa laga yaabaa marka in mar walba maray sigaar cabaan chronic cough ay sameeyaan oo ay qufacaan maanta dhan qufac badan uu la xiriiro. chronic cough-kaas uu sameynayo waxaa dhacaysa marka abdominal pressure badan ay imaanayo oo pressurekaas wuxuu saaraa marka bladderka iyo inuu contraction badan sameeyo. marka sidoo kale hore historical pelvic injury hadduu jiro ama surgery loo sameeyo ayadana way saameynaysaa stress incontinency. hooyada dhalmada joojisa oo waqtiga hore ugu dambeeyay oo menopause loo yaqaano sidaan wada garanayno waxaa isbedelaya marka hormonal change ayaa dhacay. waxa ugu horeeya oo yaraanaya decreased ku noqonaya estrogen. estrogen markii la soo daayo oo dabcan wuxuu ka qayb qaadan karaa reproductive. laakiin haddeertaan hooyada dhalmada joojisay hormonal changeskeeda waa isbedel estrogenki waa yaraaday wuxuu sameynaa marka asaga ureterka oo kale dabcan wuxuu ku sameynaa inuu noqdo atrophy. haddii atrophy uu ku dhacno hypermobility badan ayaa dhacaysa marka movement ayuu sameynaa marka space weyn oo soo baxay qofka kaadada ma celin karo. taasi marka menopause waxyaabahaas ay ka qayb qaadanaysa inay sababaan. qofkan marka stress incontinency maxaa lagu fahmaa marka in qofka uu qabo stress incontinency kaadida ay ka baxsanayso calaamadaas sidee lagu garan karaa? waxaa lagu garan karaa qofkan markiisa horeba inuu smoker uu yahay dan recurrent coughing badan uu sameynayo historicalkiisa soo galay lifting dadka heavy weight-ka motorada dadka qaada ama biraha kale almeentada galo ayagana waxaa laga yaabaa marka abdominal pressure badan inuu jiro uu ku dhacay marka bladderka contractility badan uu sameynayo. sidoo kale kaadadan waxaa waaye involuntary urination kaada dabcan way ka baxsaneen mararka qaarkood. urge incontinency baxsad degdeg ah waaye qofka waxaa laga yaabaa marka maba ceshan karabo wuu dareemaa laakiin isla markii asagoo musqusha u socdo oo u dhow ayaa waxay noqonaya marka kaadida inay ka baxsato dan macnaha uu qofkii musqusha uu galo uu soo kaadiyo haddana marka kale caadi uu iska yahay inay qabato. urge incontinency dabcan waxaa la xiriira marka clinical badan ayaa hoos imaan karo oo waxaa jiri karo BPH waxaa loo yaqaano prostate benign hyperplasia inuu ku dhacay bladder neck obstruction inuu jiro oo qayb ka mid ah bladder neck in obstructed ay tahay weather calculus ayaa jiri karo dhagaxaano inay xiraan ama waxyaabo kale oo infected ayaa dhici kara. waxaa kaloo jiri kara central nervous system leeshano badan ay ka yimaadaan ama injury hore ha u gaarto. sidoo kale cystitis ayaa dhici karo in macnaha infection oo caabuq oo ka dilaaco kaadi haysta iyo waxyaabo badan oo unknown oo noqon karo oo la mid ah macnaha inaan la garan si toos ah waxyaabihii keen. soo marka urge incontinency qofka shaqo ku jira shaqadii asagoo ku jiro isla markii kaadida qabatinka ay qabato way ka soo fakanaya intaysan musqusha u gaarsiisan laakiin dareenkiisu waa caadi. markaas waxaa jira marka hyper contractility badan oo abnormal ayaa wuxuu sameynaa marka interosseal muscleski ku hareereysnaa bladderka contractionkaas badan uu dhacayo marka oo overka ah waxay keenay marka qofka kaadida degdeg inay qabato musqusha uu gaarsiin karin. marka waxaa laga yaabaa marka waqtiyo badan xataa habeenkii inuu nocturnal u noqdo marka more times uu soo kaco uu musqusha intuu rabo inuu aado dharkii ay ka qoynayso
that's marka waxaa imaanaya marka calaamado badan oo la xiriiro in lagu fahmi karo inay tahay urge incontinence. waxaa kaloo marka jiro marka overflow incontinence way iska socotaa mararkan wax yar yar imaanaya oo dhibco yar yar ah isagoo shaqada ku jiro qofka isagoo caadi ah kaadidaas ma ka dhamaanayso wuxuu dareemaa marka an incomplete empty of bladder in qofka uu yahay marka mar walbo in bladderki kaadi ay fadhido ee wali aysan dhamaan musqushiyo aada difficulty ku qabaa marka streaming inuu dhaco marka inay kaadida ka timaado culays badan ku qabaa haddana hadduu soo baxo meeshii uu haddana uu caadi ugu joogi lahaa waxaa arkaya marka streaming kale microturation badan ayaa socdo oo kaadiha ka imaanaysa taas clinical marka asaga labadan waxay isku yihiin marka midna waa overactive waa bladder hypercontractility badan oo sameynaa midna waxaa waa inactive waaye qofka dareenkiisa iyo wixiisa ma ogo kaadida inay socoto soo marka maxaa laga rabaa marka haddii calaamadahan isku aragta marka u horeyso problem weyn ay kugu dhalinayaan waxaa laga yaabaa marka inaad qarsatid inaadan qarsanin oo meeshii kugu dhow isbitaal inaad ogaatid aad tagtid oo dabcan oo clinical lagu sameeyo baaritaan lagu sameeyo soo marka waxay ku xiran tahay marka ayada diagnosis markii la gaarayo in clinical history qofkan la helo oo qofkan chronic disease muu qabaa hypertension ma jiri makiiliyuhu ka xanuunsanay ma cuduradan pulmonary disease ayuu qabay waxyaabahaas markii la soo aruuriyo waxaa soo baxay marka saddexdan qaybood qayb ka mid oo kale sida hadduu qofka chronic disease uu qabo kale oo cobdi cudurada loo yaqaan oo pulmonary ku dhaco ama smoker uu yahay oo kale waxaa laga yaabaa mar had iyo jeer markuu cabo smoking kaas sigaarka in uu sameynayo marka coughing tiro badan daraagis daawooyin inuu isticmaali jirin in la dabagalo daawooyinka qaar waxay sameynayaan waxay badinayaan kaadida ay badinayaan daawooyinkan loo yaqaan diureticska oo furosemide-ka iyo indomamide-ka iyo waxyaabahaas lamid ah waxaa laga yaabaa marka in qofkan pressure ahaan uu qaadanayo ama keliyaha hadduu ka jiran yahay abnormal urination uu sameynayo marka maalinkii oo dhan kaadi socotaa la arkaa marka oo qofka musqusha horay gadaal u soconayo inay mararka qaarkood kaadidaas ay noqon karto ayadana incontinence sameyn karto waxaa loo baahan yahay kale urine analysis oo kale in la sameeyo oo kaadisa microscopical examination in loo diro ayadana waxaa lagu ogaanaya whether is crystals ay jiraan ama ketone body ay jiraan la ogaado waa muhiim waxaa kaloo loo sameynaa marka functional unit of kidney in la ogaadana muhiim CBC loo diro oo la fahmi karo in leukocytosis badan ay jiraan ultrasonography waa muhiim isagana waxaa la ogaanaa marka whether daas in uu jiro calculi microscopically calcium oxalates ay ka sameysmeen in bladder or ureter waxaa kaloo dabcan lagu fiirin karaa marka wax loo yaqaano cystometer functional unitska uu leeyahay bladder normal miya contractilitygiisa sidee wax yihiin waxaasoo dhan maxaa lagu daaweyn karaa marka qofkan markii uu stress incontinence urine incontinence markuu developed gareeyo waxaa la rabaa in lagu daaweeyo marka lifestyle change badan in loo sameeyo qofkan habdhaqankiisa nololeed in wax laga bedelo koow waxaa ka mid ah marka waxyaabaha liquidka uu cabayo tirada badan oo dabcan in loo sameeyo scheduling waqti gaar ah in habeenkii oo kale dabcan haddii jirto kaadi badan inuu soo baxo kale in liquidka laga yareeyo in caffeine hadduu isticmaalayo daawooyinkan caffeine oo kale la yareeyo smoking hadduu jiro oo kale dabcan in asagana laga joojiyaa muhiim waxaa kaloo dabcan loo sameynaa marka education health awareness badan in la siiyo cudurka hadduu calaamadii hadduu isku arkay dhakhtarka inuu la xiriiro sababtoo ah factorka hygienic problem ayuu leeyahay qofkii kaadida way ka ureysaa dadkii kala xishoonaya inuu dhex fadhiisto wuxuu dareemaa culays badan nafsiyan uu dareemaa isolated uu iska dhigaa marka meel gaar uu iska fadhiisanaa asagoo marka kaadidii ka ureysa then haddii waqti dheer ay sii socoto clinical complication badan inay imaadaan laga yaabaa infected inuu noqdo obstructive inuu noqdo meeshii dhagaxaan ay ka sameysmaan bladderkii waxyaabahaas badan ay isbedelaan maxaa kaloo la sameynaa marka anticholinergic drugs daawooyinkan saxaya marka contraction of bladderka hypercontractility overka noqotay normalkooda kusoo celinaa waxaa ka mid ah oxybutyninka kaniiniga loo yaqaano
badanaa waxaa loo isticmaalaa marka kaadida marka qofka incontinence uu ku noqdo. sidoo kale sulfoniacinkan asagana waa la isticmaalaa, daawooyinkaas waa la helaa. waxaa kaloo la qaadan karaa marka waxa loo yaqaana haddii uu jiro marka BPH tomsolsolinkan oo kale shiriinkiisu ugu sameeyey enlargementigii dhacay oo prostate oo kale sizekii areadii uu ku fariisto aad u weyn tahay, shiriinkin inuu sameeyo qofka asagana sidoo kale waa macquul. haddii ay jirto obstruct oo kaadidii waxaa lagaga baahan yahay catheterization inaa catheter loo geliyo oo catheter loo adeegsado. catheterkaasna wuxuu ku relief gareynayaa markay kaadidii ku ceshoontay. waxaa kaloo la duri karaa dabcan daawooyinkan isbitaalada badan lagu adeegsada botox botulinum toxin oo bladderka laga siinayo contractionka saxayso. waxaa laga maarmayna marka haddii obstruct uu jiro surgery correction in loo sameeyo in qofkan surgery dabcan la tacaala haddii whether is BPH uu yahay lagama maarmaan, whether is obstructive neck obstruction hadduu jiro sidoo kale surgery in la geliyo. asxaabey waxaan sameynay insha Allah conclusion, waxaan ka hadalnay urine incontinency saddexda qaybood oo u kala baxdo. stresska ugu horeeya urge iyo overflow. stresski inta qofooda hoos imaan karo waa ka soo hadalna. waxaa loo baahan yahay marka in taxadar badan inaad muujisid haddaad isku aragtid calaamadahan incontinence. waa inaad la tashataa qof dhakhtar badanaa marka ummadeena waxa waaye ama shacabkeena waxay markay isku arkaan incontinencygan kaadida ka baxsanayso waxay sameeyaan dabcan infectiono ay u maleeyaan antibiotic iska bilaabaan. waa lama huraan in diagnostic laga gaaro, clinical historygaaga la ogaado, urine analysis lagu sameeyo, dabagal xoog leh la sameeyo. marka insha Allah waxaan kusoo gabagabeynaynaa mowduuceeni aan uga hadalnay urine incontinence. insha Allah waxaan jecelnahay inaan idin soo bandhigno mowduucyo kale oo la muhiim ah kuwan oo ummadana waxtar u yeelan karo. waxaan jecelnahay oo kale idinkaga dardaarmaynaa inaad sii gudbisaan, share out aan sii sameysaan, wixii comments aadna ka soo bixisaan. aad iyo aad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.